Dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa waxay ka dhacday degmada Xamar Jajab ee ka tirsan gobolka Banaadir. Nin ayaa u dilay xaaskiisii $25 darteed. Xilli uu weydiistay $25, ayaduna ay tiri anigu ma awoodo $25 iska daayee wax carruurtayda aan ugu karsado badar. Sida ay warbaahinta u sheegeen ila kaag dhow ama qoyska ka mid ah. Muuqaalo laga soo duubay isla qoyska ayaan isu gudbin doonin sababo jira awgeed iyo muuqaalku ay ku jiraan naxdin aad u baahsan qoyskii carruurtii ay ka tagtay oo iska barooranaya sida sawirada aad ka dheehan kartaan oo iska ooynaya qaarkoodna ay dhabanada haystaan oo ka soo horay ama kaag iyaab sida lama filaanka ah ee aabahoodii uu u dilay hooyadood. Qoyskan waa la soo diristay murugo aad u baahsan ee tiraanya ayaa waxa isugu soo baxay dhammaan shacabkii, qaraabadii iyo dadkii ka agdhawaa oo deriska ahaa intaba si ay qoyskan u sabarsiyaan in iskugu dayaan ugu yaraan carruurtii ka tagtay inay niyadda u dhisaan. Hase yeeshee carruurta ayaa marnaba niyadda loo dhisi waayay haddii ay u yimaadeen xitaa qoyska qaraabada u dhow ah ee habaryartood, eedadood iyo qoyska u dhow. Carruurtii ayaa marnaba laga sabarsiin layahay hooyadood. Qaarkood ayaa ku jira da'da aad u yaryar oo waa carruur aad u yar qaarkood oo aan kala garanaynin hooyada waa ay dhimatay iyo aabaha waa uu dhintay iyo walaalka waa uu dhintay. Magaca dhimashadana aan maqlinba qaarkood iyo qaar aad u waaweyn. Tiraanyadan iyo murugtan waxaa muddooyinkii u dambeeyay guud ahaan gobollada Soomaaliya ku soo siyaaday dhacdooyinka familka isdilaya iyo waxyaalaha ku saabsan taasi oo noqotay kuwa aan xal loo helin. Dadka ayaa falaqeynaya sheegayna in arrintani ay sal u tahay muqaadaraadka oo ku soo batay guud ahaan geeyiga Soomaaliya. Muqaadaraadka loo yaqaan xashiishka iyo waxyaalaha la midka ah kuwaasina ay asbaab u tahay dililka walow qadar meesha ay ku jirto haddana dililka foolxumada ah ee waalidkii ilmihiisa dilaya iyo nin xaaskiisa dilaya iyo waxyaalo la mid ah oo ah waxyaalo argagax leh. aad iyo aad u mahadsantihiin.